waa dhab inuu marar badan wejigiisu baraha internetka kaga soo horbaxay oo aad aragtay isagoo muuqaallo aan maangal ahayn kuwa maad ah iyo qaar salfudayd ka muuqdo sameynaya laba qodob oo saldhig u ah dadaalkiisa baraha internetka ayaase sheekadiisa qiimo sare u yeelaya. Kani waa Aisha Speed, live streamerka ugu horeeya kuwa afka Ingiriisiga ku hadla ee dunideena iyo mid ka mid ah saddexda muuqsameeye content creator ee adduunka ugu saameynta badan maanta. Ninkan oo magaciisa saxda ah la yiraahdo Darren Jason Watkins ilaa 15 jirkiisii ayuu soo waday waxa loogu yeero live stream gaming-ka oo uu bilowgii magaca ku kasbaday. Ka hor inta uusan bilaabin taageeradiisa waalida ah ee xiddiga kubadda cagta Cristiano Ronaldo, taasoo geeyaysiisay inuu dad badan oo magac leh muuq la sameeyo. ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah barihiisa internetka ka soo muuqdaan. Ugu dambeyntiina uu la kulmo Cristianaha uu la fahantiisa magaca weyn ku kasbaday. Speed waxa uu sameeyay muuqaallo badan oo aan maangal ahayn, kuwa oo qayb ahaan furnimo iyo qariska tuurnimo ku jirtay, balse uu ku kasbaday malaayiin ku xirmay baro internetkiisa. Suufinimadaas oo geeyaysiisay inuu noqdo mid ka mid ah wajiyada ugu caansan baraha bulshada maanta, uuna ku gaaray hadafkiisii internet ee ahaa inuu dhaqaale uu qoyskiisa ku kaalmeeyo ka helo sida uu sheegay. My first big purchase was mainly probably just buy my mama house. Wixii ugu horeeyay aan sameeyay markii aan lacagta helay waxa uu ahaa inaan hooyaday guri u iibiyo. Aisha Speed maanta waxa baraha bulshada kaga xiran dad gaaraya 100 milyan oo qof isu geyn. Wuxuuse dadaalkaasi ka bilowday hal viewer ama daawade ka oo ku dhiirigeliyay inuu mustawahaas gaaro. I had that one viewer, and that viewer made me keep going. And each day and more. Week 2, I started averaging 4 viewers. Week 3, 8 viewers. Marka laga yimaado in dadaalkiisa muuqsamaynta ahi geliyay kaalimaha ugu sarreeya ee muuqsameeyayaasha internetka, haddana Speed hanti badan ayuu ka tabcay internetka oo milyaneerada dunideena ayuu haatan ku jiraa daayarkani, waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa tiro u dhaxaysa 10 ilaa 20 milyan oo dollar.